حربنا أطقسية دمان مدي إسلام كهيد كمساكين كهيد كتعس أو كل انتهي محن كل هذا قرحي كذا عين مقدشو إلهي وحن ليها إلهي هون حريست أنت متقارن دعوة عنتين إلهي هأبوه قديو وإلهي عافيو أنتي دمتين إلهي جنة فردوس الله كورابيو dhibaatadan ilaahay naga dulqaada dhamaanteen wayna wada haysataa qof kaliya laga ma dhiman anaga dhan bay naga wada dhinteen marka waxaan leeyahay ilaahay dhibaatada naga wada kor qaado intii dhimatay Allah u naxariisto anagana ilaahay nooga daba naxariisto inta xanuunsan dhaawacana ilaahay caafimaad sariica ah siiyo aamin kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida dacalada ka joogtaan halkan aad naga daawanaysan wararka TV markasta waxaan idin leenahay saaxiibayaal ku soo dhawaada intii ka maqnay channelkana ee hadda ku cusubna fadlan subscribe noo saara like nagu dhiirigeliya noo share gareeya oo markaliya barnaamijkeeni hadalhaynta arrimaha bulshada karaan waxaanu eegi doonaa xaaladii ugu dambeysay ee Maxamed Saciid BK iyo hadalkii uu dhawaan ka yiri baraha bulshada halkaas oo dadku ay siyaabo kala duwan uga soo hadleen fanaanka ayaa dadka qaar waxa ay sheegeen in fanaanku aad u khaldamay hadalka ka soo yeedhana uu yahay hadal runtii laga yaxyaxo sidoo kale waxaa jiray fanaaniin kale iyo dad kale oo fanaanka u soo jawaabay oo ku dhagan hasaatee fanaanka caanka ah ee Maxamed Saciid BK ayaa hadal uu masrax ka jeedinaya goob fagaara ah waxa ku sheegay in Muqdisho hadii ay rabto inay nabad noqoto in Soomaaliland la ictiraafo waxaana halkaas ka cad in uu la maaneysiyay qaraxyada Muqdisho ka dhaca markasta iyo ictiraafka Soomaaliland maray hadashay fanaanada caanka ah ee Nasta Hindo ayaa iyada tacsi tiiraan leh u dirtay sidoo kale fanaanka caanka ah ee Dayaxdar Nisho ayaa isagana oohin afka furtay kalena tacsi tiiraan leh u diray dhammaan ehelkii qaraabadii ciidii ku dhimatay qaraxii ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay egas control afgooye halkaas oo dad fara badan oo dhalinyaro iyo dad shacab isku jira ay halkaasi gabi ahaanba ay naftooda ku waayeen sidoo kale waxaa jirta in maalmihii ugu dambeysay tacsi xoog leh ay baraha bulshada ka socoto dadkuna ay u soo dirayaan dadkii eheladooda waayay iyo kuwii dhintayba ama kuwii dhaawacmay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa hadda degan taas oo xaaladdu ay caadi ku soo noqotay sidoo kale dadka aadka uga xanuunsaday waxaa ka mid ah fanaanka caanka ah Dayaxdar Nisho fanaanada caanka ah ee Nasta Hindo fanaanka caanka ah Nimcaan Hilaac waxay sheegeen in runtii ay aad iyo aad uga xun yihiin waxaana sidoo kale fanaaniin kale oo sanadkan doonayay inay show qabtaan ay gabi ahaanba showgii joojiyeen sababo la xiriira in ay dadkaasi u borordiiqayaan waxaana ka mid ah fanaanka weyn ee Muqdisho fanaanka weyn ee reer Hargeysa ee Qamar Suugaani oo isaga magaalada Nairobi doonaya in uu show ku qabto halkaasi oo la filayaa in showgiisa loo kala kiciyo fanaanka ayaa sidoo kale fanaaniin kale oo ku nool dunida dacaladeeda ayaa sanadkan waxay doonayeen in gabi ahaanba ay showyo ku qabtaan showyadaasina ay ka baaqatay sababo ay iyagu sheegeen in ay la borordiiqayaan walaalaha Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho lagu xasuuqay Muqdisho oo xaaladeeda waxa iska noqotay mid markasta dadka la iska dilo oo dhawacyadu qoriyo dilalkuba ay farabeelaan taas oo marba markasta dambaysa maalmihii ugu dambeysay hadda fiicnid laakiin hadda ay muuqato in xaaladii ay soo noqotay sanadka cusubna ay la kowsanayso fanaanka caanka ah Maxamed Saciid BK ayaa hadal uu baraha bulshada ka yiri gaar ahaan masrax uu joogay ee London ayaa waxa uu ku sheegay khudbad dheer halkaas ka jeediyay halkaas uu kaga hadlay in xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho ay sabab u tahay ictiraaf la'aanta Soomaaliland haysa waxaana uu sheegay in haddii Soomaaliland la ictiraafo ay Soomaaliya nabad noqon doonto taas uu isaga garaadkiisa hadlay shacab badan oo reer Hargeysa ama reer Soomaaliland ah ayaa runtii aad uga naxay hadalka ka soo yeedhay fanaanka waxaana dadku badankooda ka raali galinayaan shacabka Soomaaliyeed ee maanta dhibaataysan maanta ku jira xaalad xun oo ah dadkoodii ay waayeen fanaanka ayaa dadka qaar waxay ku sheegeen in fanaanku uu rabay inuu si kale u hadlo laakiinse uu hadalka ku xumaaday
Fanaanka ayaa markii hore waxaa la doonayay in uu tacsi u diro shacabka Soomaaliyeed, hase ahaatee markii hore tacsida marka uu diray waxaa ku dambeysay hadalkan ayaa qayb ka mid ah lasoo goostay oo baraha bulshada lagu faafiyey. Fanaankana waxaa la filayaa inuu dhowaan raaligelin bixiyo oo halkaasi ka hadlo. Dad badan oo mas'uuliyiin, wariyaal iyo shacab ku jira oo reer Somaliland ah ayaa runtii aad uga hadlay arrinkan oo aad iyo aad uga gilgishay, waxaana sheegeen in shacabka Somaliland aanay la qabin hadalka ka soo yeedhay Maxamed Siciid Biike. Fanaanka ayaa maalmihii ugu dambeysay lagu dhegnaa halkaas oo la sheegay in fanaanku uu yahay fanaan cunsuri ah oo dadka Soomaaliyeed aad iyo aad u neceb. Taasina waxay dhalatay xilli uu magaalada Nairobi rabay in show ku qabsado, showgiisna gebi ahaanba loo diiday. Cadhada uu ka soo qaadana Hargeysa kusoo noqdo, hadallo badan ay ka dhaceen. Fanaan Maxamed Siciid Biike ayaa markii uu tegay Somali Week oo lagu marti qaaday ayaan ilaa hadda dib ugu soo noqon gudaha Hargeysa. Hadda waxa uu wadanka dibadiisa ku qabsanayaa showyo kala duwan oo runtii aad loogu camiray. Fanaanka ayaa sanadka cusub sidoo kale isaga rabay inuu show qabsado, hase ahaatee xaaladda fanaanka ayaa waxaa soo kala dhex gashay kadib hadalkan uu baraha bulshada la soo geliyey oo uu meel masrax ah oo fagaaro ah oo dad fara badan oo halkaasi joogeen uu ka jeediyey, taas oo loo arkay in ay khalad tahay in fanaanka uu dadka sidaasi ugu jeesjeeso. Dadka qaarna waxay sheegeen in fanaanku uu ka aargoosanayay dadka Nairobi u diiday. Waxaa kale uu fanaanka sheegay in gebi ahaanba runtii uu galay xaalad aan loo wanaagsaneyn, taas oo dadku u arkayeen in fanaanku uu khaldamay. Fanaanka waxaa jira dad soo caayay fanaanka oo muuqaalo jawaab ah u soo diray baraha bulshadana haystay, taas oo aad moodo in fanaanka la iskugu tegay oo dad fara badan ay u soo jawaabeen. Fanaanka waxa uu sheegay ama dadka ka eldhow ama ka agdhow waxay sheegeen in fanaanku uu jawaab degdeg ah kasoo bixin doono hadalkii kasoo yeedhay shacabka Soomaaliyeedna uu raaligelin doono. Waxaanu eegi doonaa fanaanka raaligelintiisa iyo hadalka uu jeedin doono iyo sida uu u hadli doono, walow dadka aadka seeflaboodka u ahna ay gebi ahaanba ku tilmaameen in fanaanka uu ka dhintay oo aanay rabin in dib dambe ay taageero siiyaan. Dadkii taageerada u ahaana badankoodu waxay sheegeen in taageeradii ay kala noqdeen. Soo wada duuboo fanaan Maxamed Siciid Biike xaaladiisu hadda waa hirig, meeshii ay ku dambeysana waan eegi doonaa. Dad fara badan oo reer Somaliland ahna waxay ku sheegeen in fanaanku uu khaldamay lagana hadho. Sidoo kale fanaankana la filayo in uu ka soo jawaabo hadalkaasi kasoo yeedhay. Dad fara badan oo reer Somaliland ay aad iyo aad uga cadhoodeen oo ay ku sheegeen hadal laga naxo oo dadka Soomaaliyeed aan geyin. Hadda waxaa dhalanaya sanadkii cusbaa ee 2020 dad fara badan oo isugu jira fanaaniina waxa ay hadda sugayaan in showyo kala duwan ay qabsadaan. Showyadaasina ay gebi ahaanba sheegeen in ay joojiyeen oo shacabka Soomaaliyeed ugu baroordiiqayaan oo ay doonayaan in aanay sii wadin. Hadalka Maxamed Siciid Biikena waxa uu ku soo beegmay xilli xaaladda ay kacsan tahay, dad fara badanna ay dhinteen oo dad fara badan guryahoodii ay ka jirto musiibadaas oo dadku ka argagaxeen. Hase ahaatee Maxamed Siciid Biike ayaa ictiraaf keenay meesha. Ictiraafkana waxa uu lamaanaysay dadkii dhintay iyo qaraxyadii laga geystay Muqdisho. Taasina waxa ay gebi ahaanba dadka u arkeen in Maxamed Siciid Biike uu khaldamay, khaladkiisana uu isaga ku kooban yahay, laakiinse dadka reer Somaliland aanay la qabin. Qof kasta oo Soomaaliyeed lagama waayo qof xun iyo qof wanaagsan. Hase ahaatee Maxamed Siciid Biike xaaladda uu ku sugan yahay iyo hadalka uu ka hadlay ayaa ahayd mid runtii aad iyo aad looga naxay. Waxaana shacabka Soomaaliyeed aan ka leenahay ka raalli ahaada halka ka soo yeedhay Maxamed Siciid Biike iyo dadka lamaanka ah ama ay isku caqli yihiin. Waxaana idin leenahay saaxiibayaal, meel kasta oo aad dunida dacallada ka joogtaan, subscribe noo saara.